xuskan oo ah mid in ka badan hal qarni iyo bar sanadkiiba mar lagu qabto deegaanka loo yaqaano Qayrqabe oo ku yaala ku dhawaad 65 kiiloomitir meel kaga beegan dhinaca waqooyi bari degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa sanadkan waxaa ka soo qayb galay kumanaan qof oo u badnaa culimadiin kuwaasi oo ka kala yimid deegaano fara badan oo ku yaala bartamaha waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya iyo sidoo kale qaar ka mid ah dalalka dibadda siyaaradan ayaa waxa aalaaba ay tahay mid lagu xuso isla markaana loogu duceeyo Cabdalle iyo Cawareere oo ah waalidiinta ay ka soo jeedaan beesha Saacad waxaana xuskan uu socday muddo 3 maalmood ah lagu sadaqeeyay xoolo fara badan oo kor u dhaafaya 100 neef oo ariya kuwaasi oo la siiyay dad masaakiin ah oo iyagu ka kala yimid meel fog waxa sidoo kale halkaasi lagu gowracay ari fara badan sanadeedkan ayaa sidoo kale intii uu socday waxa culimadiinkii halkaasi ku sugnaa ay ku soo bandhigeen qasiidooyin ka turjumaya taariikhdii wanaagsaneed ee xagga diinta ee laga dhaxlay waalidiinta la isugu yimid in loo siyaarto isla markaana loo duceeyo gabagabadii xusanadeedkan lagu qabtay deegaanka Qayrqabe ayaa waxa culimadiinka iyo bulshadii ka soo qayb gashay isugu soo baxeen goob fagaara halkaasi oo si wada jira loogu duceystay allana looga bariyay in dhibaatada haysata ummadda Soomaaliyeed uu ka saaro si kastaba aatee waxaa jira in badan oo ka mid ah bulshada caalamka oo iyagu fikrado qaldan ka dhaadhiciya bulshada intooda aan aqoonta fiican u lahayn diinta islaamka kuwaas oo u sheega in xuska waalidiinta iyo siyaarada qabuurtu ay tahay gaalnimo taas oo ah mid aysan waxba ka jirin